saxaabta maanta waxaan siinayaa 5 tips waa 5 tips oo markaad baranayso luqadda aad Englishka kaaga dhigi doona very easy laakiin kama dhigna de 5 time marnuu socdo kala baran laakiin waxay ku siinaysaa waxa la yiraahdo a push bay ku siinaysaa sida barata Englishka. So let's get into it. Dingo yalla dhashay ma dhilba saddex urugele ma dhilba daymanka ku socdo ma dhilba dhashay badal ilaahi wali maanta waxaan ku siinayaa nickname yar weeyaan waa dhexdeena laakiin prefer nickname maanta waxa weeyaan like waxa tahay beginner waxay ka dhigan tahay dadka imika wax ay ku cusub yihiin amba ay ku jadiid yihiin waxay ka timid verbiga begin waxay ka dhigan tahay start oo kale below ay ka dhigan tahay marka aan wada bilowna videoga waxbarashada it's faa'iido waqti people let's go. sida videoga waxa weeyaan vocabulary-ga waxa oran karayaa waa labada uu kamid yahay lafdhabar ee luqadda I know laba lafdhabar soo lahaan karaysaa waa luqad masheeba maxaa kale marka why because adoo wax kasta garanay maato 26 boog oo dhameeyo naxwiya haddana xadad haysan kelmado ugu filan xaggan ku haysan marka maxaad ku hadli waxba kuma hadlaysid that's it you know what I'm saying sahaba leeyahay tani xadad xoojin weydo wax kasta oo garanay sida waxba kuma tarayo ana maanta waxaan ku hayaa a way saad u xoojisid your dictionary xagan ku dhex jira horta baan u tan isticmaalay waxa weeyaan naming items around you waxay ka dhigan tahay balaabaha adiga yaala yani adii xaafadaada oo kale xagga joogtid oo kale makrasada hareeraha oo kale magac ooga xafid sida imkaan waxaan dhex joogaa kale maqsinkayga I am in my room maqsinkayga ma dhex jooga waxay hor yaal my bed xagan waxay yaala miiskayga tablekayga xagan waa albaabkii maqsinkayga my door oo kale markaas oo kale waxay xoojinaysaa saad u xafisidid ma garatay saad u xafidid maxaan ku hadlayaa saad u xafidid oo kale kugu saacidaysaa ma garatay marka xagana waxaad xoojinaysaa your dictionary-gaaga maskaxdaada saddexaadna waxa weeyaan very important tan saddexaad waxa weeyaan listening waa maxay dhegeysiga I know dhegeysiga neeshay ka waalidkii ma waxaad ka yar karaadin ma laakiin hadda laga dhegeysta videoga dhegeysiga ajiib dhegeysta videoga dhegeysiga baranay ajiib wala waan tortay iska daa laakiin waxa laga yiri listening waxa weeyaan muhiim waayo hadda dhegeysan weydo wixii labadii shay hore aan ka hadalno kale waxay noqonaysaa course muxuu ahaa vocabulary hadda dhegeysan weydo kelmadaha jadiida ma baranaysid kow marka taas way ka dhacday ka dhigan tahay labaad maxay pronunciation-ka dhawaaqa amba accent-ka ma garatay accent-ka haddaad aad wax dhageysan weydo seed u baran sida loo dhawaaqo kelmadda marka tani labadii horeysay way isku wada xireen shanta tips oo maanta tani waxa weeyaan iminka listening-ki waa dhegeysigaaga waa inuu xoojisanaado talabaadna waa inaad markaad waxa dhegeysanaysid uu noqdo waxaad ka heshid oo xiisaysan ku sheegay tipsigii horeba marka waxaad u xiisaysid muxuu yahay imka adiga ahaan maxaa dhageystay qof sheekh haddaad tahay waxaad dhegeysataa quraan amba xadiis oo kale waxaad waxyaasan oo kale xadiis waxaad dhegeysataa English sida sheekh Maxamed Weyn waxaad magaciisa garka yar maxaa Kenya u dhashay ma garanay whatever sheekh waxaad dhegeyso English waxaa isku dayda inaad ku dhegeysid quraanka dhanba inaad ku dhegeysid English haddaad ka heshid maxaa dadka ka hela heesaha Sharma Boy Gang maxay Lil Wayne maxay haddaad tihiina heesaha laakiin iska jira heesuhu waxay leeyihiin point yaraan ii sheegi doono tipsiga shanaad laakiin ma garateen waa inaad siisin waxa aad taantay waa inuu noqdo waxa ka heshin sad u dhageystin waayo waxaan ka helin dayaa dhageysanay no one qofna iskuma dayayo marka taas waa inaad very xoog hadu xoojisiin yo tipkan kalena waxa weeyaan lafdhabarka waxaan sheegay ma horta labo waxaan sheegay lafdhabar ma ku bilaabay videoga in the beginning of the video kan waxa weeyaan lafdhabarkii labaad waxa weeyaan grammar I know guys higa cabsuunaan waa grammar markaan maqano waxaan moolaa inaad xafidasid 26 boog oo baan moodaa oo wax isdaba dhigaysid meey waa very easy grammar waa very simple adu yar joog ana ku sheegay oo kala dhigaysid horta ko waxaan doonaynaa aan ku sheego grammar-ka anagu marka aragno boog ma arkayna 26 boog grammar ku xafid kaamale waayo taasi aad ma sameynayso wad garanaysaa ana ma sameeyno waan garanay intiino waan garanay inuu midkiinba sameeyay waayo taasi ma sidaad meel ku gaarleed that's not the real way you know to achieve things that u gaadid alaabaha aan ku sheego waxa weeyaan waxay leedahay muxuu grammar-ku saddex tense bay leedahay oo de asaasi waqti kastaba leeyahay waxa weeyaan waa present xaadirkii joogay past wixii dhaafay iyo mustaqbalkii wixii soo socday saddexdaas shay oo kale haddaad ku dadaashid wax kasta iyo ku dadaal karaysaa marka saddexdaas shay sida imka aniyar kala siyar kala saartaa waxaan sameyn doonaa video gaar ah sida imka kale
wax markaa sheegaysa jooga imika xaadirta in the present waxay isticmaalaysaa ing sida imika I am watching a film waxaan daawanayaa film baan daawanayaa pasti baad waxaynaysaa ed ayaad xagga dambe raacinaysaa I watched a movie waxa soo socdana waxaad raacinaysaa waxa la yiraahdo wax saacidi karayaan helping verb oo kale going to weeyaan I am going to watch a movie waxaan daawan doonaa movie imika intaasoo kale waa inta easyga inta kalena video gaar ayaan nagu soo kala faadireen doonaa let's get to another tip let's go xabadana waxa weeyaan baashaalka I know tipsiga laakiin kama dhigno هذا باشا هلا دانس no كان waxa ka dhigan tahay using amusing methods in learning English amusing method waxa ka dhigan tahay turuq bay ka dhigan tahay aad ka heshid oo ku baashashay sida intii hore baan ku yadhaxay sheegay waxa weeyaan tiibsiyaasha adigu aad ku baashashay muxuu yahay hoosta iga soo qora in the comments below amba in the TikTok iyo message garay in the Instagram whatever is sheegay waxa ka heshin laakiin aan waxaan oran lahaa saddexdan shay yaa u sareeya tawras waxa weeyaan movies filmaanta oo inay sheegan waxaan kusoo sameyn doonaa entire video filmaanta oo easy sansaad uga baratid luqadda Englishka talabaad waxa weeyaan books oo kale taana video kusoo sameyn la gaara ayaan soo sameyn doonaa insha Allah books waxa weeyaan waxa hada buugaanta inaan akhristo novel ko kale maagarad kuwa sheekayaasha kuwa la iska akhristoona caadiga ma sheekada kale sida animka kuwa waxa ugu jecel waxa jira two writers ma uga helaa Charles Dickens iyo William Shakespeare labadaba aan jecel kuwan waan ka soo sameyn doonaa video insha Allah wax kastaba kasdaxana waxa weeyaan music heesaha laakiin heeso point bay leedahay iska jira heesaha waxa weeyaan imika heesaha Brian Ork waa wada hees wada ka buuxdo ay baan oran karay ama kelmado aad isticmaali kareen adigoo la hadlaya qof oo kale la hadlaya aad isticmaali kareen ma garatay waxa la dhahdo it's very inappropriate baa la dhahaa inaad isticmaashid ma hatan oo kale ma garatay marka heeso waxay isticmaashin kelmado iska caadi ah heesaas oo kale ku dadaalna dhageystiin Thanks for watching my videos yo